بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegaystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhegaysanayo halkani waa codka soomaalida Finland SSM oo aad bartayada internetka goorahan oo kale kala socotaan annagoo idiin soo gudbina wararkii koronaha Finland iyo caalamka intiisa kale maanta oo talaada hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga THL ayaa shaaca ka qaaday in laga helay viruska corona dalkan Finland 220 qof oo hor leh taasoo tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee Finland ka dhigaysa 18,107 qof meelaha ugu badan ee faafista cudurku uu ka dhacay waxa ay kala yihiin magaalada Helsinki 63 qof, Vanta 26 qof, Espoo 20 qof, Turku 16 qof, Tampere 12 qof, Sodankylä 8 qof, Jyväskylä 6 qof, Uusikarlebu 6 qof iyo Luoto oo 5 qof ah iyo magaalooyinka kale oo intaasi ka sii yar. xanuunka viruska corona awgiis waxaa isbitaalka ugu jira 73 qof sida ay sheegtay hay'adda THL kuwaas oo 13 ka mid ay ku jiraan qaybta xaaladda aadka u daran. dhimashaduna waxa ay haatan weli maraysaa 363 qof. waaxda caafimaadka ee Helsinki, Uusimaa iyo agagaarkooda ayaa toddobaad walba waxaa la sheegay in viruska corona laga helo in u dhaxaysa 700 ilaa 800 oo qof. inkasta oo xaaladda faafistu ay aad u sarreyso haddana howlaha wax lagaga qabanayo ka hortagga viruska ayaa weli waxay yihiin kuwa gacanta ku jira oo aan faraha ka bixin sidaasna waxaa sheegay dhakhtarka sare ee Markku Mäkijärvi oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee Helsinki iyo Uusimaa. saamiyadii baaritaanka ee laga qaaday dadka degan Helsinki iyo Uusimaa ayaa 3% waxa ay ahaayeen kuwa positive ama viruska laga helay. saami qaadista ayaa haatan mid aad u sahlan oo qofku isla markiiba uu helayo jawaabtana waxa inta badan lagu helaa 24 saac gudahood. sida uu sheegay Mäkijärvi xaaladda bukaanka corona ee ku soo batay daryeelka isbitaalada weli ma aysan gaarin heer ay dhibaato ama saameyn ku keenaan buu yiri shaqooyinkii caadiga ahaa ee isbitaalada ka socday gaar ahaan agagaarka waaxda caafimaadka ee Helsinki iyo gobolkan Uusimaa. waxaana haatan isbitaalada ku jira in ka badan 20 bukaanka viruska corona la xanuunsan. dhinaca kale baaritaano ku saabsan saameynta uu viruska corona ku leeyahay ilmaha uurjiifta iyo hooyada uurka leh ayaa iyagu dhowaan soo baxay sida maanta uu shir jaraa'id ka sheegay madaxa waaxda caafimaadka ee Helsinki iyo gobolkan Uusimaa Seppo Heinonen waxa uu sheegay in baaritaano noocaas dalka Mareykanka laga sameeyay. hooyooyin uur leh oo tiradoodu ay kumanaan kor u dhaafayso ayaa isbitaalka u galay xanuunka viruska corona awgiis. waxaana natiijadii soo baxday ay noqotay in 98% aan laga helin caruurta uurjiifta ah wax viruska corona isla markaana ay dhaleen caruur nool oo caafimaad qabta. dhimashaduna aad bay u yareed. baaritaanka lamid ah ayaa laga sameeyay ayuu yiri Seppo dalka Ingiriiska. faafista viruska corona uu gudbiyo uurjiifta ayaa waxay tahay mid aad u yar. waxaana sidoo kale gobolkan Helsinki iyo Uusimaa agagaarkiisa intii xanuunkan safmarkaa uu bilowday isbitaalka u galay ilaa 100 hooyooyin uur leh oo kuwaasi aanu xanuunku ku dhicin ilmaha yar ee uurka ku jira. haatanna wararka dibadda. dalka Sweden oo xaaladiisa faafista viruska corona ay maalmahan aad uga soo darayso ayaa jimcihii kadib ilaa maanta tirada dadka laga helay viruska corona marka la isku daro waxay noqonaysaa 15,797 qof. dhimashada ayaa Sweden dhowrka maalmood waxa ay gaaraysaa 35 sida ay sheegeen warbaahinta kala duwan ee dalkaasi. tirada guud ee haatan Sweden laga helay cudurka tan iyo intii uu bilowday waa 162,240 qof iyadoo dhimashaduna tirada guud ee marayso 6,750 qof. jimcihii kadib waxaa qaybta aadka u daran ee isbitaalka galay 57 qof iyadoo tirada guud ee dadka ku jira qaybaha aadka u daran ee isbitaalka ama qaybaha xaaladoodu daran tahay waxa ay tiradoodu gaaraysaa 2,851. waxaa wararka ka imanaya Sweden ay tilmaamayaan in maadaama cadaadiska xoog leh ee viruska corona ee isbitaalada uu soo batay ay haatan isbitaalada dantu ku khasabtay inay dib u dhigaan qalliinkii caadiga ah ay samayn jireen. sidaasina waxaa laga soo xigtay raadiyaha dalkaasi Sweden. hogaamiye sare oo ka tirsan ururka xoreynta reer Falastiin ayaa u dhintay viruska corona maanta. hogaamiyahaasi oo magaciisa la yiraahdo Saib Urayqaad
waxaa la sheegay inuu ahaa 65 sano jir islamarkaana muddo badan ahaa xogayaha ururka xoreynta reer Falastiin. sidaasoo kale waxaa qayb uu ka ahaa wadahadallada Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda. saaxiib Ureyqaad oo maalmahan baa la ildarnaa xanuunkaasi islamarkaana la jiifay isbitaal ku yaala dalkaasi Yuhuudda ayaa la sheegay 3 sano ka hor in lagu beeray sanbab cusub, laakiin xaaladiisa caafimaad ee aad uga soo dartay kadib markii fayraska corona uu ku dhacay. maanta ayuuna dhintay. warkii ugu dambeeyay haatan oo ka baxsan arrimaha corona, warkaasi waxa uu ku saabsan yahay dhalinyarada iyo arrinkooda khaasatan dalkan Finland. wargeyska Helsingin Sanomat iyo qaybta warbaahinta ee kanaalka MTV3 iyo warbaahinno kala duwan ayaa maanta waxa ay soo qoreen dhibaatada iyo walwalka laga qabo dhalinyarada ee soo kordhaysay xagga isdilka iyo maandooriyaasha. waxaana warbixintu ay sheegaysaa in walwalka dhibaatooyinka ka taagan arrimaha dhalinyarada ay sii kordhayaan, sida ay boolisku sheegeen, gaar ahaan caasimadda Helsinki iyo agagaarkeeda. xagga dambiyada dhalinyarada ayaa waxa ay ku sii socdaan kuwa heer caalami ah. boolisku waxa ay sheegeen in dagaalka iyo rabshadaha dhalinyarada ka dhexdhaca ay inta badan yihiin kuwa la xiriira howlaha mukhaadaraadka iyo dhaca la isu geysto marka la kala iibsanayo maandooriyaha. boolisku waxa ay sheegeen in dhalinyarada intooda badan ay ku hubaysan yihiin mindi ama toorey. boolisku waxaa kaloo ay sheegeen in xagga dambiyada inkastoo haatan aad ay usoo bateen, haddana marka loo eego sanadkii hore ay ka yar yihiin, oo marka la isku daro dambiyadii dhacay January ilaa iyo bisha September ee sanadkan waa ay ka yar yihiin marka loo barbardhigo kuwii sanadkii hore. waxaa boolisku sidoo kale ay sheegeen in dhalintaasi ay isugu jiraan kuwa ajaanibta ah ayna u badan yihiin, islamarkaana aanay ka marnayn dhalinta ama dadka dhalinyarada u dhashay wadankan Finland. waxaana dhexdooda haatan kusoo batay ayaa warbixinta lagu sheegay dhalinyarada xagga isdhaca oo la iska dhacayo dharka iyo kabaha qaaliga ah ee astaamaha gaarka ah leh. wargeyska Helsingin Sanomat waxa uu sheegay in magaalada Helsinki ee nawaaxigooda haatan ay joogaan oo si khatar leh u dhaqmayaan dhalinyaro lagu qiyaasay tiradooda 100 ilaa iyo 150 qof, kuwaas oo da'doodu u dhaxayso 20 ilaa iyo 13 sano jir, waxaana ay isugu jiraan wiilal iyo gabdho. dembiyada ugu daran waa dhaca la isu geysto iyo iibinta maandooriyaha, gaar ahaanna waxay aad arrinkaasi ugu soo badanaysaa Helsinki iyo nawaaxigeeda. marka la eego dembiyadii ka dhacay ama dhalinyaradu ay geysteen sanadkan ayaa tirakoobyada ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan isku day dil in uu ahaa ilaa iyo Janaayo laga soo bilaabay ilaa iyo haatan 4 dembi. jirdilka nooca culus wuxuu ahaa 8 dembi. jirdilka caadiga ah 224. isku day jirdil 8 dembi. jirdilka fududna 42. marka la isku darana dembiyadaasi dhalinyaradu waxay noqonayaan 286 dembi. sanadkii horena waxaa tiradu ahayd 308. dilkii ugu dambeeyay waxa uu ka dhacay xaafadda Valila ee Helsinki, halkaasoo dhalinyaro koox ah oo da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 40 jir ay toorey geliyeen nin 20 jir ah. ujeedaduna ahayd sida wararku ay sheegayeen in ay doonayeen in ay dhac u geystaan. sababta awgeedna qaar ka mid ah hadda ay xiran yihiin, islamarkaana dembigaasi uu meel dhexe u marayo, inkastoo boolisku aanay sheegin cidda ay u dhasheen dhalinyaradaasi. isku soo duub oo xaaladda dhalinyarada ayaa waxa ay tahay walwal taagan. arrinkaasina maanta ayaa duqa magaalada Helsinki Jan Vapaavuori bartiisa Twitterka uu kusoo qoray walwalka arrinkaas ay leedahay iyo dhibaatada ay leedahay, isagoo ka codsaday in dhammaanba hay-adaha dowladda, howlwadeennada, waalidka, ururada bulshada la iska kaashado sidii arrinkaasi wax looga qaban lahaa inta aanay taladu faraha ka bixin. waxaa sidoo kale jiray baryahii dambe cod aad u dheer oo laga maqlayay dadka siyaasiyiinta ah iyo warbaahinta intaba, taasoo looga digayay in arrinkaasi uu faraha ka baxo, islamarkaana uu kusii socdo sida haatan Sweden ka taagan. dalka Sweden xaaladiisu meel adag bay maraysaa, iyadoo dhalinyaradu ay u kala baxeen kooxo iska soo horjeeda, islamarkaana dagaal iyo dil isku haya. si kastaba waxaa loo baahan yahay dhammaan bulshada in ay ka wada qayb qaataan sidii khatartaasi looga hortagi lahaa. qofkii qodobkaasi xiiseynaya akhrintiisana waxa uu ku soo baxay wargeyska Helsingin Sanomat maanta iyo qaybaha warbaahinta kala duwan. dhegeystayaasha qiimiga qaayaha mudane hawada naga dhegeysanayo, intaas ayaan kusoo koobaynaa wararkii caawa aan idinku talagalnay. tan iyo kulanteena dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.